السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتو حرباني هيا عربينا كهلا أما نهاية أرين أو لياب له أو بريهان ما أركنه السوشيال ميديا كوجرتي أو أنا قلفتي وحق صار ماشي فيسبوكي حق صار كوبايابي أرين تنوحاواي برعي كده عده ويل يعني إن رير برعي أو نين يعني ويل مع نين إني وجهته ayaa wuxuu isku soo sawiray gabar yariis aday u badato 12 sano ma dhaafis roon ahaantii masuurkaan soo dhigi doona idinka arki doona yani ani saa u maleeyay 12 sano aday u badato 12 sano hadii la dhaha okay ku dar ayaanay bal naxariistu soo xoogaa da'deeda ugu dar 13 ha dhaha laakiin uma maleena 13 idinkan insha Allah kommentaarkii ku soo qora marka aragtiin gabadha da'deeda maxaa u maleynaysiin marka inaan kan reer burca bariyahan social media ku jiray dadkii ka hadlaayay markii dambe video waan soo dhiga oo hadlaayay uu leeyahay aniga 19 sano jira sabir wallahi da'deedu waxa weeye 20 jir weeye da'deedu aniga waxa weeye 19 baan ahay video ku leeyahay ani 19 sano jira uu yiri gabadhan hal bil isnaqaanay hal bil ka dambe waa iska helnay waalidkeena isku keendaray waa is aroosnay waan is jecelnahay اوكي محوما استعلاده محوما اس اروس يعني دي لبد قف اسك هلان اي يعني جيرين سبب ما تقانتا اي جيرين سبب اي كو كل يعني wax xaraanta intii xaraan dhicleed xalaasha dhaanto laakiin bil hatta ma dada waxa jiro usbuuc isku yaqaano inkastoo ay ka fiican tahay sababta qofka degdeg ina ku degdeg ina ku aroosto ma fiicna qofku wuxuu noqonaa ma ogid at least hatta 6 bilood 5 bilood fiiri unless aslo hadii aslo korteen oo istaqaantiin oo labadiina cid asxaab ahaayeen waa la fahmay laakiin wiliga qof aqoon wiil wala gabar la hadlaya aku degdegin sababta waxa dhaca badan waxa marka ku degdegtid qofkii ma taqaan dabeecadiisa oo laga yaano isbedelo badanaana waxa way dadka badana wili dumarka inkastoo dumarka badan wax ka caawadaan qofkii romantic ahaa qofkii u naxariisan jiray dib iska taqaanta guurka ka hor mugtahay ubax badan inkastoo Soomaalidu waxay isku keenin ma qan dhalinyarada hadba sameeyaan laakiin dadka horeeta laakiin waxa isku keenaa hadiyado loo soo diraa telefoonka lacag loogu shubaa shokolaada loo keenaa yani shaleema loo wada gaariga loo wada yani waxa soo dhan adicin wala kora loo qaaday yani adicin ajabi laakiin qofkii markuu arko wax yariis qofkii oo fiicnaa fiicnaa dan xulay waa ka helay hay mikiga heshaha qofkii waa ka helo ku dhaxaa adiga ba gabar iska taa waa iska jeclaatay am wiil iska taa inkastoo hada gabdhaha wiilashan oo loo sameeyo saas way jiraan dumar oo kan xoogaa wajigooda runta qariyo ka damba waxa dhacayo qofkii haya leeda adiga ana ka hadan oo ku jeclahay waa balis aroosay wiiga u horeeyo ma laga yaabaa labadii ku horeyso ilaa afar usbuuc oo horeyso laakiin maxaa ka dambeeyo afar usbuuc ka damba qofkii wajigiisa runta kula soo baxa waa mar is aroosteen waa mar nikaaxi dhacay waa mar hada laga yaabaa magaalada aad tagneed inaad ku soo guurto meel kale u guurteen waa mar waxa laga yaabaa meel kale aad ka shaqeynaa inuu ku shaqadaada ka soo tag ama gabadha ku tir walaalo inta u guureena meeshan araba ama wiilku u yiri gabadha soo bax meesha deganaa ana ku biilay kaara shaqadaada maxaad ugu soo tagtay badana gabdhaha shaqadoodii waxoodii way iska dhigaan markii aroosaan ba ana ku biila ana sara leeyahay marka qofka wajigiisa runta kula soo baxa taasna waa wax in dadka dhaqamada kala marka la fiiriyo Soomaalideena xogaa guurka ku degdegaan yani dibab jira awgeed waxa laga yaabaa gabadha in guriga xornimo ku haysanin waxa laga yaabaa wiilka waalidka maanta oo dhan in lay warleysiya tahay inta ay jiiftaa shaqo lay aaday guriga imaanay baxma aroostid maxaasan ama reer hebel ama reer hebel gabadhooda kula jeclaaday bax yani qof weyn tahay waa imna ma dhashido ama laga yaabaa in culees dhinaca la saar ani ay raba inaan noqdo awoowa raba inaan noqdo dadkii faxa ahaa imni dhaleen adiga xameesha ku soo istaajiye matiirkii magaalada tahay sidii ay nasteexinta qaadays inda heesay qaadays matiirkii nasteexindo heesay qaatay 2 sano ka hor may qaatay maqaan 3 sano ka hor ilaa matiirkii magaalada tahay yani seegeeda isku dhaceen ku jeeta marka waxa way dib badan keeno mid kalena waa in hadda badan kama hadalno run ahaan dibka Soomaalida dhaqamada kala hadda wadan soo qaato wadamo waxa jiro oo wiilka intaan sheegay sababta rabay inaan uga hadlo waxa jiro qofka adaa aqoonin oo iska gashay dib badan kala kulmaysa hadda wadamada qaar kood hadda wadamada qali carabaha wadamadan oo Asia kamid ama Asia hadda Malaysia camal
Malaysia labada qof markay is aroosayaan horta ibnaha yaryarka badanaa iyaga ma la ogola da-da sida Soomaaliya camal qofka in gabar yariis nin weyn loo diraayo ma ogolo laakiin labada qof hadday is aroosaan 3 bilood oo course loo diray 3 bilood oo course labadiina qof misku haboontihiin misku soo isku haboontiin ma inaad isku qurux isku tihiin laakiin xal laga wada dabeecad ahaan isfahmaysiin dhaqan ahaan isfahmaysiin mislu noolaan kartiin koorsadaas waxaa loo baraa ay nooc kasta guurka ka mid ah waxaa loo baraa sida isla hadlo cashara laga shaqeynaa laga yaabaa qofkan wax meesha ku qoran inuu si kale u fahmo kan warkale oo lisku fahminba oo lisku dhacabo marka 3 bilood let's say 8 qof koorsada bilowday oo rabtay is aroosaan 3 bilood sida iyaga baaritaan oo website Malaysian meel ka aqriyo Malaysia waxay dhaheen 3 bilood 8 qof waxaa laga yaabaa 10 qof ama 8 qof inay is aroosaan 8 guur inuu dhaco 8 qof oo rabin is aroosaan laga yaabaa ka yaraataba 8 qof laga yaabaa is aroosaan inta kale in la isfahmo in labada qof ay isku soo bixeenin ama dhaqan ama dabeecad ama waxaas waxaa kaloo jirta oo professor oo Malaysian ka hadlay wuxuu yiri isfahan la'aanta iyo muranka dadku waxay isfuraan badanaa 6 bilood gudahooda Malaysia marka sidii Soomaaliya ahaan jirtay dadka qofku raba iska aroosi jireen wala ma jireen laakiin waxay arkeen sanadadii dambe waxay arkeen dadka markayba is aroosaan 37% inay kala tagaan 6 bilood oo horeyso marka dhibkaan xaquu ka jiraa dhibkaan haysta xaquu ka jiraa oo furniinkii inuu baday dad dhalinyaro is aroosay oo happy ahaa 6 bilood ka dambe maxkamadda la tagay ama duudeed inuu furo ama iga furo leedahay ama meesha iyaga badanaa maxkamadda aadaan sababtoo wadan sharci leh oo meel la tagi karo oo maarkino system la anaka system wax maliin wadankeen waxa wadan insha Allah ilaahina sida hore uu ka dhigi doonaa wadankeena si ka fiican oo xafiisi email la tagay guurkii maxaas moogta marka isku dhiga marka koorsadaas ay sameeyeen koorsadii hadda furniinkooda wuxuu soo aaday hoos u soo dhacay 12% yaa isfurta 37 meesha ka ahayd markastana hoos u sii dhacaa shuruudda waxa waaye warqada shahaadada adoo loo siin in koorsada soo qaato ma aroosi kartid waxaa kaloo ku jirta oo iyadana gaar ah raba inaan uga hadlo insha Allah hadda warqad rabay caafimaadka Soomaaliya waxa laga yaabaa hadda badanaa warqad caafimaad isma weydiiyo qofka caafimaadkiisa inuu ama jiro qaba laga yaabaa qofkan kale ku daaran kara ama mentally maskaxiyan ahaan inuu u jiran yahay ama qofkii loo qarinayo ama siga qarinayo waalidkiisu qarinayo qofkan inuu waaleeyahay laga yaabaa inuu dumar uu dilaa inuu ahaa laga yaabaa ama nin ama naag ama qof soo dilay oo maarkino loo qarinayo laakiin wadamadan hadda isla Malaysia hadda ku laabto Malaysia waxay qabtaa qofka warqad caafimaad oo imaamka meherka ma dhacayo iyadoo warqada gabadhii wiilkiiba caafimaadka ama inankeyga iyo inantiba caafimaadka warqad iyo ko keeneen ma dhacayo in meesha la dhiga waayo warqadii caafimaadka warqadii in koorsadii ay soo qaateen badanaa marka meesha la dhigaa iyo waxaa kaloo jira hadda meesha Soomaalida afka ay ka sheegaan meherkeyga waa intaas waa la soo qoraa gabadhii way soo saxiixay walaad intaas wiilku soo saxiixa imaamka loo dhiibaa waxaa laga wadaa si guur fiican uu meesha ugu imaado si qofna loo dhibin si qof loo dhibaateenin gabar walaa wiil in guurkas guur raaxa leh guur farxad in ku noolaadaan sida ma Soomaalida isku heestay iyo gabdhaha dhahayo gabdho badan oo xajirin meherkoodii la siinin marka waxaasna dadkan horumar gaareen ma sha Allah ilaahay uu barkay anakan waa gaari doona marka qisadan walaal waxa way wiilkan reer burceedka gabadhaas oo 19 sano jira video waa soo daawateen marka qofka soo bilowga hore ku sheegay mar kalena ku soo celinaa marka wuxuu yiri 19 sano jira gabadhana 21 sano jirta wala yaabay saaleeda okay 19 jirta gabadha 21 sano jirta adiga ninka wan weyn runtii marka aragtay 30 ku sii socda gabadhana 12 hadii aa u naxariistaa iriya aniga ayaan ahaan u naxariis liraa ku bari aan naxariisada idaahdin 13 aan iga yeela hadii aan naxariisto ibradin waaya 13 laakiin ka badan ma yeelay kadan bas videoga dhexdiisa wuxuu leeyahay may ani 27 sano jira gabadha 21 sano jirta isla meeshii sheekada ku bedelay waa la yaab isla videoga dhexdiisa sheekada bedelay waana wax laga yaabaa marka wax sidoo kale waa ka shakiyay sababta ma aha video gabadha marka aragtay masuurkeeda hore dadka soo arkay
waaba ogtiinba inay gabadhaas jireen 21 sano hadda 13 sano ma gaarin isigana horta okay 27 haduu sheegta hataa waa la dhihi karaa wuu jiraa 27 laakiin kooda wuxuu 19 jira haddana 27 haddana intaas ilaaha intuu jira laakiin markastaba inaha gabdhaha yaryarka oo nimanka way kala siinaayo yacni in oo waalidiinta siinaya hadday noqoto in lacag ka qaataan hadday noqoto in xoolo la siiyo hadday noqoto in guri loo gado waalidka lahaa gabadhaadana sii waa laga fiican yahay gabadhaada ayaa aabiyo hooyo kaaga qaalisan wax kasta markaa xanuunsato waa gabadhaada wax kaa naxayso waa gabadhaada wax ku karab taagan waa gabadhaada salaadii saliga weysadii saliga kaa dawato ood kaniiniga iyo wax kasta kuu keenaysa marka gabadhaada lacag asiisanin insha allah waa ku mahadsantihiin saa u daawateen walaalaha videogan waxaa waaye maasha allah jambi family ka tirsantihiin markasta dadka daawado waa ku mahadsantihiin aan nile waqtigiina geliseen insha allah haddaad jeceshihiin waxyaalaha ay jeceshihiin inaa ka hadlan comment meesha iyo kusoo qora marka insha allah marka meesha waxaa waaye ama message ay isoo diri kartiin instagramkayga marka insha allah ama snapchatkayga snapkaaba hata ka fudud bada ay kusoo qortiin qofkii raba in sheeka ama waxaa raba inuu dadka adduunka la qaybsado oo raba inuu isiga sheega loo sheegi karaa isagoo magaciisa wixiisa la bedelaay marka walaalayaal maanta videogaasaan yahay waana ku mahadsantihiin saa ii daawadeen haddaa videogan ka heshay like saar si walaalaha kale uu gaaro subscribe-kana saar walaal waa free ma lacag maaha dhaqli ku siino maaha thank you share-kana saar walaal si walaalaha kalena uu gaaro waana ku mahadsantahay daawashadaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu